Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawade ku soo dhawaaw janaalka Wayaf Company. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa 54 qaab aad internetka lacag uga samayn karto si fudud adigoo gurigaada jooga. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, hana ka ilaabin inaad like saarto siina share garayso. Wixii faala ah waa inoo muhiim aad hayso nagu reeb qaybta kommentiga ee fiidiyoga. Maalin walba waxaa halkan kugu soo gudbin doonaa 1 ilaa 3 qaab ama nooc oo ka mid ah 54 qaab ee internetka lacag uga samayn karto si fudud adigoo gurigaada jooga. Ku soo dhawaaw qaabka koowaad. Waxaa u baahan tahay qaabka koowaad si aad u isticmaasho mobile ama computer, sidoo kale internet iyo browser. Sababtoo ah waa website. Ina browser haya haysatana waa ku muhiim. Browser haya waxaa ka mid ah Chrome-ka, Firefox-ka iyo wixii la mid sida Samsung browser. Website-kan waxaa loo yaqaanaa CKE website. Waad ka samayn kartaa lacag si fudud adigoo gurigaada joogo, wax badan ma aadan qaban. Waxaan filayaa hadda mobile ama computer wuu ku yaalaa, internet waa haysataa, browserna wuu kugu jiraa mobilekaaga. Hadda waxaan galaynaa website-ka. Linkiga website-ka waa kana midkaan hoose waaye. Waa midkaan hoose. Waxaan kugu soo dhigi doonaa sidoo kale linkiga website-ka description-ka fiidiyoga. Sidoo kale waxaa kugu soo dhigi doonaa commentiga koowaad ee fiidiyoga. La socod wacan. Hadda waxaan koobiyeynaynaa linkiga. Linkiga hadda waa soo koobiyeen. Kaliya waxaan rabnaa hadda browser aan ku furno linkiga. Okay, noo soo kici browserkan. Sida ujeedaan website-ka hadda wuu noo soo furmay. Aniga hore ayuu igaga diiwaan gashnay. Laakiin adiga markii aad ku cusub tahay kaliya waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay Jonas Now. Marka aad meeshaas taabatid waxaad gashan doontaa email, username iyo password. Marka intaas gashatay kadib waad is-register garaysay. Kadib waxaad samayn doontaa kaliya waxaa imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay user area. Hadda user area waad joogtaa. Waxaad ku sii dhufanaysaa start watching paid ads. Markii aad ku dhufato kadib waxaa ku soo bixi doono page-kan. Page-kan markaad samaysid waxaad samaynaysaa tirada meeshaan ku qoran ayaad ka daba qoraysaa oo keliya. Kadib waxaad ku dhufanaysaa continue. Tirada way isbedelaysaa. Mid kale ayaa qoranaysaa continue. Mid ogow tiro walba markii aad qortid aad continue dhahdid waxaa heli doontaa 10 senti sida meeshaan ugu jeedid. Meeshaan hadda ka fiiri. Okay. Waa qorayaa. Lacag ayaa ku darsoomi doonto. Waad aragteen afla mar kale.
waad aragtaan fila soo haraagaaga meeshaan ayuu noqon doonaa intana waxaa waaye linkiga markii hadda description ka soo dhigo kala aagashid lacag boqolkiiba 50 ayaa heli doontaa boqolkiiba 50 kaas maalin walba helaysid markay badato ayay inta kugu aroori doontaa intana waa lacagta adiga shaqaysatay soo marka withdraw wuu leeyahay markii aad rabtid lacagtaada inaad la baxid midna ogow 150 ka yar ma la bixi kartid soo withdraw ayaa taabanaysaa withdraw markii aad taabatid kadib hadda ani lacag ayaa la soo baxay oo bendina soo marka daqiiqada soo socdo hal maalin ilaa 2 maalin badanaa qaadataa in lacagtaas ku soo gaarto waa $154 so waxaa sameyn doontaa kaliya toole payment method ka rabtay in wax lagu soo diro ayaa taaban doontaa PayPal Mastercard ama bank account so mid ka rabtid ayaa dooranaysaa kadib faahfaahintiisa bis aad gashanaysaa magacaaga iyo bangigaas account numberka wax lagu soo diraayo so kadib withdraw la dhehaysaa automatic baa laga aqbali doonaa website kan asiga dhan waa intaas waxaan filayaa inaad ka heshay oo ku caawiyay qaabka labaad Google Play Store waxaan filayaa dhammaantiin waa wada taqaaniin Google Play Store waa meesha lagala soo tago gameska iyo apps-kaba mobilkaada waa ka heli kartaa Google Play Store haddaba qaabkan labaad si aad u samayso waxaa lagaaga baahan yahay mobile ama computer midkood mid inaad haysato sidoo kalena ku furan yahay Gmail verified waxaa kaloo laga rabaa inaad haysatid bank card sida Mastercard ama Visa card waxaa kaloo ku muhiim ah internet inaad haysato maxaa yeelay internetka ayaaba wax dhan ka saacidayo aadna rabto inaad lacagta ka samayso sidoo kale waxaa ku muhiim ah Google Console inaad leedahay Google Console waa la furan karaa qaab loo furto ayuu leeyahay waan ku soo gudbin doonaa asigana si gooni ayaana uga hadli doonaa qaabka u furan lahayd Google Console account okay si aad Google Play lacag uga samayso marka hore waxa u baahan tahay in uu jiro app aad adiga leedahay maahan app uu qof kale leeyahay waa inaad samaysataa app ama game adiga ku qaasa for example kanoo kale hadda waa app kanoo kale waa app sidaas oo kale waa inaad adiga leedahay okay ugu horeyn Google Play Store ka ayaan soo fureynaa Google Play ga waan soo fureynay hadeertaan akoonkaana waa free file sidaas darteed lacag waa ku samayn kartaa waxaa ku garan kartaa Google kaaga akoonkiisa inuu verified yahay console-na u furan yahay wuxuu leeyahay sheeyadan open movies open book open music kuwaas ayuu leeyahay kuwa kale ma lahan payment method ku u furan yahay okay hadda waxaa sameynaynaa waxaa rabnaa inaad dhigno app ana app hore ayaa u dhigtay Google Play ga saas darteed si aad adigana lacag ugu samayso waa inaad dhigataa app adiga leedahay ama samayso ama halagu sameeyo Google Play ga waa meesha kaliya ee ugu badan ee lacagta laga helo xataa YouTube ka internet ko idil Google Play ga waa meesha ugu badan ee lacagta bixiya biliimaad qof walbo maanta internet ka high ka gaaray ama software ama company samaystay number 1
waxaa kaalinta koowaad in heerkaas gaaro kuwa ka ah Google Play-ga. Waa meesha keliya ee internetka lacagta aadka u badan bixiso. So payment method-ka ayaa tagaysaa si aad ugu darto kaar oo bank, Visa card ama PayPal. Wuu aqbalaa PayPal-ka iyo Mastercard. Okay. Hadda ani ma rabo kaar kale inaan ku daro, maxaa yeelay 3 kaar ayaa igu xiran. Waa ku dari karaa mid kale haddii aad haysto, laakiin mid kale haddii ku daro ma jiro. 3daas kaar ayaa igu xiran. Laakiin si aad kaar ugu dartid, waxaa samayn kartaa add credit or debit card ayaa taabanaysaa. PayPal si aad ugu dartidna add PayPal ayaa taabanaysaa. Okay. Kaar numberka ayaa inta gelinaysaa. Markii aad gelisid kaarka magaca iyo location-ka iyo wuxuu ku weydiin doonaa CVC-ga kaarka. Kadib save ayaad dhihi doontaa. Wuu aqbali doonaa kaarkaas kaar jiro oo saxan haddii uu yahay. Ogowna kaarka markii aad ku daraysid waa inuusan eber ahaan, ugu yaraan lacag $10 ama ka badan ay ku jirtaa si loo aqbalo kaarkaada. Ha ka walwalin, lacagtaada lagama baxsan doono, laakiin kaliya muhiimadda waa inuu kaarkaada eber ahaan. Si Play Store-ka aad app u dhigato, waxaa u baahan tahay Google Console account. Google Console-ka ayaad soo furanaysaa. Chrome-ka ayaad tagaysaa. googleconsole.com ayaad qoraysaa. Wuu ku soo bixi doonaa. App ayaad ka soo dhigan doontaa. Sida app loo sameeyo, sida Google Console loo furto, dhammaan waa cashiro gooniya oo kuu sharaxi doonaa. Markii app aad soo dhigatid kadib Play Store-ka, app haddii yaalayaan fiirin doonaa. So mar dhow ayaa dhigay. Waa kana app-kayga. Waa midkan waa soo degsan kartaa. Waxaa loo yaqaanaa Lagbook. Lagbook waa app social media sida Facebook oo kale. Boosti ayaa dhigi kartaa, shaqo ayaa ku abuuran kartaa ama ka raadsan kartaa. Waad ku sheekaysan kartaan asxaabtaada iyo fiijiro badan ayaa ka heli kartaa. Okay. App-kaada sidaan oo kale markii aad u dhigatid. So meeshaan waa qofkii app-ka soo dhigay, kambaniga app-ka lahaayo kale. So app badan ayaa yaalo. Waa soo wada degsan kartaa dhammaantood. Okay. App-kan ayay lacagta u furan tahay marka. App-kan markii aad samaysatid oo kale, aad dhigtid Play Store-ka, dad ayaa soo degsan doona. Calaa qofkiiba oo soo degsado waxaa ku heli doontaa sentiyaal. Markii qofka app-ka uu soo degsado, sentiyaashaas lagu xisaabiyo. Kadib isticmaalka app uu qofka isticmaalayo, waxaa ku sii heli doontaa ayadana lacag ka badan sentiyaasha uu Google-ka hore ku siiyay. Halkii daqiiqaba calaa qof waxaa ka heli doontaa 0.02 cent. Kaba soo qaad app-kaada inay isticmaasho 100 qofood. 100kaas qof kastana ugu yaraan oo 10 daqiiqo kaliya talaa uu ku jira app-kaada. 10 daqiiqo calaa daqiiqadba 0.2 ku dhufo. Kadibna ku sii dhufo 100 qof. Meeqa ayay noqon kartaa maalintii? Kulley way badan tahay saafilaay. App-ka markii aad soo gashid oo saan u shaqeynayo, lacagta
aniga way ii bilaabatay markii qofka xaysiintan hoose oo ku dhufta ama taabto lacagtii aan ka helaya lacag ka badan ayaan ka sii heli doonaa qaabkaas waa qaabka Play Store-ka lacag loogu sameeyo ogowse Play Store-ka meesha ugu yaraan maalintii way kaa soo geli kartaa 200 ilaa 300 waa qofka ugu yar ee aanan wax bani haysanin waa kan ugu yar 200 ilaa 300 aabkaada markii 1000 qofood ama 100,000 qofood uu gaaro waad dareemi kartaa lacagtaas aqligal maalinta ku soo gelayso yacni waa lacag aad u badan so that waa qaabkaasna waa qaabka keliya ee Play Store lacag loogu sameyn karo sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa in aad soo degsataan applicationka Lagbook descriptionka ayaa idin soo dhigi doonaa sidoo kale linkigiisa commentiga ugu horeeyna waa idin soo dhigi doonaa inaad soo degsataan ayaan filayaa sidoo kale haddii aad soo degsatid si gooni ah ayaad igagala sheekaysan kartaa oo si live ah si wixii aad u baahato aan kaaga caawiyo maanta labadaas qaab ayaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo birina 2 ama 3 insha Allah fadlan ha ka ilaawin subscribe inaad saarto aabkana aad soo degsato mahadsanidin